Bannaanbaxyadani ayaa waxaa lagaga soo horjeeday madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo aflagaado u geystay nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaana qaar ka mid ah shacabka Burco ay bannaanbaxyadani ka dhigeen jidadka waaweyn ee magaalada Burco iyagoona cambaareeyay madaxweynaha dalka Faransiiska kaasi oo ay ka muuqato islaam nacayb badani. Raxmaan Raxiim waxaan maanta halkan kaga mudaharaadaynaa Faransiiska oo caayay suubanaheeni Maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxaan leenahay ilaahay ajibiyo Faransiiska madaxweynaha Faransiiska ilaahay ha sharaf rido waxaanu haddana nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojino dhammaanba wixii alaabaha aanu ka keeni jiray dalka Faransiiska waanu joojinay alaabtiisa waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland yaan la iibsanin alaabtiisa. Allahu akbar waxaanu halkan isugu soo baxnay qorraxda isugu nimi inaanu ninkii gaalka ahaayeen nabigeena caayay inaanu waajibkiisa marno inaanu habaarno wax kala tari mayne ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdal korkiisa ha ahaato nacdal korkiisa ha ahaato ilaahay ha baabiyo ilaahay ha baabiyo ilaahay ha rogo ilaahay gaalada ha dilo aflagaadeeya waanu ka soo horjeednaa af baan nugu hilnaynaa oo xiliyaan nugu hilnaynaa oo xoog baan nugu hilnaynaa lug baan nugu tegaynaa akbar Allahu akbar Faransiisku ha dhaho Faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku ha noolaado Faransiisku ha dhaho ilaahay waxaan ka baryaynaa ninka gaalada Faransiiska inuu ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay ciise siiyo annagu nabigeena sallallahu alayhi wasallam hiilinayna diin baan ugu hiilinayna af baan ugu hiilinayna gacan baan ugu hiilinayna hiiliyo hawal garab taaganay gaalada ilaahay jabiyo Allahu akbar wixii musliga calaamada wala cadaabaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar halkan waxaan uga mudaharaadaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed waxaanu leenahay Faransiisku ha dhacaanu leenahay ilaahay ha ridaanu leenahay madaxweynayaasha islaamkana waxaanu ugu baaqaynaa sida ordigan inay u hadlaan oo diinta ilaahay ugu hiliyaan sidaasaanu ka codsanaynaa madaxweynaha hadlay nabigii ilaahay buu wax ka sheegay ninka nabigii ilaahay wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay madaxda islaamka waa inay jawaab ka bixiyaan. guud ahaanba dadka muslimiinta ee ku kala nool daafaha dunida ayaa si weyn uga cadhooday